الله الرحمن الرحيم أبي وناكسن كسر هذا برنامج كورك الصومالية قضبض عن ذي كوجها إنه وحى كمذا مركب كان مانت أم بحياة بيها الصومالية ما هو كلية قلب فرسمه واستنقرن ورجه وفرصد وبلا عصب وكل ومركب كي قدي لها عيلكي ugu horeeya ee shidaalka Soomaaliya oo maanta ka soo dhaqaaqay dalka Turkiga haddaba maxaa cusub faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa Soomaaliya waxa ay ku baaqday in Afrika la siiyo kursi joogto ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay faahfaahin ka soo baxaysa howlgal lagu dilay in ka badan 10 al-shabaab ah oo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe iyo Soomaaliya oo ku biirtay guddi muhiim ah oo qiimeeya siyaasadaha hay'adaha iyo nidaamyada dalalka Afrika dhammaan wararkan oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka Soomaalida soo dhawaada mar kale daawadayaal waxaan ku bilaabi doonaa markabkii qodi lahaa ceelkii ugu horeeyay ee shidaalka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ka soo dhaqaaqay dalka Turkiga dowladda Turkiga ayaa soo ambabixisay maanta markabka weyn ee casriga ah ee loogu talagalay qodista saliidda ee lagu magacaabo Jackby kaasi oo ku soo jeeda biyaha Soomaaliya si halkan uga bilaabo howlgal lagu baarayo kheyraadka saliidda markabkan maanta ka soo kicitamay dekada Tashichu ee gobolka Mersin koonfurta dalka Turkiga waxa munaasabada suguutintiisa ka qayb galay wasiirka batroolka iyo dekadaha Soomaaliya Daahir Shire Maxamed maarayaha hay'adda batroolka iyo wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Turkiga Alberslan Bayraktar wasiir Daahir Shire oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ceelka ugu horeeyay ee markabku ka qodayo Soomaaliya loo bixiyay curad kow isaga oo tilmaamay in Jackby uu yahay markabkii ugu horeeyay ee qodi lahaa ee ay dowladda Turkiga u dirto meel ka baxsan biyahooda taasi oo ku sifeeyay tallaabo taariikhi ah oo kor u qaadaysa iskaashiga labada dowladood waxa uu intaas ku daray in markabku uu mari doono jid dheer oo ku dhow 45 maalmood socdaal ah isagoo ugu dambeyntiina dhanka ee badweynta Atlantika iyo xeebaha galbeedka ee Afrika halkaasi mari doona halkii uu mari lahaa ee marinka Hormuz ilaa ugu dambeyn uu ka soo gaaro dekada Muqdisho markabkan maanta oo baxaya biyaha Soomaaliya ma oo kaliya qalab farsamo waa astaanqaran waa rajo waa fursad waa bilow cusub oo ku dhisan sharci hufnaan iyo mas'uuliyad kheyraadkeenu waa hanti qaran waxa naga go'an in si hufan cadaalad ah isla markaana waafaqsan heerarka caalamiga ah loo maareeyo si uu ugu faa'iideeyo jiilkan iyo jiilasha soo socda sidoo kale wasiirka tamarta dalka Turkiga Alberslan Bayraktar oo ka hadlay munaasabada suguutinta ah ee ka dhacday magaalada waa gobolka Mersin ayaa waxa uu sheegay in ceelka Curdwan la doortay bishii Abriil isla markaasina loo asteeyay goobtii ugu horeysay ee qodista Turkiga ee dalka ee saliidda ka soo saarayo markabka qodista ee Jackby ee bishii Abriil ayaan u bixinay curad kow taasi oo af Soomaali ahaan ah magac loo bixiyo la siiyo ilmaha ugu horeeya ee dhasha sidoo kale magacan ayaan u bixinay ceelkeenii ugu horeeyay ee halkaasi ku yaal ayaa uu yiri Bayraktar wasiirka tamarta Turkiga ayaa wuxuu rajo ka muujiyay in sanadka 2026 uu noqon doono sanad guulo laga gaari karo daafurka kheyraadka saliidda iyo gaaska isagoo xusay in Turkigu ay ka go'an tahay in uu ballaariyo baaritaanada tamarta ee uu ka sameeyo gudaha dalkiisa iyo dibaddaba talabadan ayaa timid kadib markii uu horay biyaha Soomaaliya baaritaano dhanka systematiga ah amaba hababka saddexagalka uga sameeyay markabka Orog Reis biyaha Soomaaliya taasi oo uu natiijadii ka soo baxday oo qaaday dalka Turkiga Soomaaliyana waxay ku baaqday in Afrika la siiyo kursi joogto ah oo ay ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dunida u soo jeediyay qorshe ay qaaradda Afrika ku heli karto kursi joogto ah oo ay ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxweynaha oo ka qayb galay shirar heerar kala duwan ah oo ku saabsanaa mustaqbalka qaramada midoobay iyo kulamo duceedyo muhiim ah oo ay yeesheen dalalka xubnaha ka midowga Afrika kuwaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa uu sheegay in qaramada midoobay ay wajahayso caqabado waaweyn oo ay kamid yihiin colaado daba dheeraaday loolan siyaasadeed iyo cadaadisyo dhaqaale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay dib u habeyn ballaaran oo lagu waafajinayo nidaamka qaramada midoobay duruufaha caalamiga ah ee maanta jira si loo xoojiyo waxtarka hay'adaha iyo kalsoonida lagu qabo waxa uu xusay in Afrika ay door muuqda ay ka qaadato ajendaha nabadda iyo ammaanka caalamka isagoo oo dalal badan
oo ka tirsan qaaradda Afrika sheegay inay hormuud u yihiin howlaha nabadda ilaalintiisa iyo sidoo kale dadaalada xasilinta si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in Afrika ay weli ay ka maqan tahay matalaad joogto ah oo golaha ammaanka ah arrintaasi oo u baahan buu yiri dib u eegis degdeg ah sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay midnimo Afrikaan ah iyo diblomaasiyad joogto ah si loo xaqiijiyo dib u habeyn dhab ah oo ku dhisan cadaalad iyo sinaan isagoo adkeeyay in Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojin iyo cusboonaysiin qaramada midoobay ah si loo dhiso nidaam cadaalad ah oo dhammaan qaaraduhu ku leeyihiin ka qaybgal iyo matalaad loo siman yahay hadalkan waxa uu ku soo aadaya iyadoo xogayaha joogtada ah ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlayay shalay furitaanka shirka midowga Afrika oo ka dhacay dalka Ethiopia si adag uga hadlay ka maqnaanshiyaha qaaradda ee kuraas joogta golaha ammaanka ee qaramada midoobay Guterres waxa uu carabka ku adkeeyay in mar waliba oo go'aanada Afrika laga gaarayo ama waxyaabo muhiim ah oo looga hadlayo miiska la soo dhigayo iyada oo aanay fadhin Afrika balse hadda kadib loo baahan yahay in arrintaasi dib looga laabto oo dib loo eego xilli uu hoosta ka xariiqay in waqtigaani la joogo ay dunidu horumartay isaga oo afqabsaday in aan la joogin 1946 oo inta badan qaaradan ku jirtay gacan gumaysi balse maanta xor ay ka yihiin dalalkeeda loona baahan yahay in cod joogto ay ku yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay shanta dal ee kuraasta joogtada ah ee golaha ammaanka ee isku gooni yeelay ayaa kala ah Mareykanka oo matala Amerika Ingiriiska Ruushka Faransiiska oo Yurub matala iyo dalka shanaad oo ah Shiinaha oo qaarada Aasiya matala Afrika kuma lahan kuraas joogto ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay markaana gobolka Shabeellada Dhexe aynu eegnay waxa faahfaahin ka soo baxaysa howlgal halkaasi ka dhacay kaasi oo lagu dilay in ka badan 10 al-shabaab warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa waxa lagu shaaciyay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay howlgal qorshaysan ee ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo lagu beegsaday dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab howlgalkan oo si gaar ah uga dhacay deegaanada masaajid Cali Gaduud iyo Daarusalaam ayaa waxa la tilmaamay in lagu dilay ugu yaraan 15 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda al-shabaab sida lagu sheegay warka rasmiga ah ee wasaaradda gaashaandhigga dawladdu waxay sheegtay in bartilmaameedka howlgalkan uu ahaa dagaalamayaal qorsheynaya sida hadalka ay u dhigtay weeraro iyo falal amni darro ah oo ay ka fuliyaan wadooyin iyo deegaano gobolka ah warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu xusay in intii howlgalkaasi uu socday la burburiyay gaadiid iyo hub ay al-shabaab lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa mar kale waxay xaqiijisay in howlgalka ka dhanka al-shabaab uu sii socon doono ilaa laga cirib tirayo qatarta ay ku hayaan nabadda iyo xasiloonida dalka ugu dambeyntiina Soomaaliya waxay ku biirtay guddi muhiim ah kaasi oo qiimeeya siyaasadaha hay'adaha iyo nidaamyada dalalka Afrika Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu biirtay habka isqiimeynta iyo dib u eegista maamul wanaagga Afrika ee BRM oo ah habraac uu aasaasay midowga Afrika si dalalka xubnaha ka ah isu qiimeeyaan isla xisaabtamaan isla markaasina u horumariyaan maamul wanaagga hufnaanta iyo tayada hay'adahooda dawladeed ku biiristan Soomaaliya ayaa waxa lagu xaqiijiyay intii uu socday kala fadhigii 35aad ee madasha hogaamiyaasha dalalka iyo dawladaha ka tirsan xubnaha ee BRM halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku saxeexay heshiis is-afgaradkiisa ee ah ku biiritaanka Soomaaliya heshiiska BRM ma ahan hanaan kormeer dibadeed oo lagu faragelinayo dalalka balse waa nidaam ay dawladuhu si ikhtiyaari ah ugu ogolanayaan in la qiimeeyo siyaasadahooda hay'adahooda iyo nidaamyadooda maamul si loo ogaado meelaha horumarka laga sameeyay iyo meelaha u baahan in dib u habayn iyo tayan lagu sameeyo tani waxa ay kor u qaadaysaa isla xisaabtan wadaagitaan khibradeeda iyo sidoo kale isbarbardhigga wax ku ool ah oo u dhaxeeya dalalka Afrika BRM ma ahan hanaan kormeer dibadeed ah oo lagu soo rogay wadamadaasi hase yeeshee waa isqiimeyn iyo hanaan dib u eegis oo ay dawladuhu iskooda u gudbinayaan siyaasadahooda hay'adahooda iyo nidaamyadooda maamul si loo qiimeeyo waa tahay qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN wararkeena iyo barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga internetka oo kala nahay hbnonlinetv.com iyo Facebook YouTube iyo Twitter oo ah HBN Online TV intaan ku kulmi doono wararkan kuwa kan xiga sidaas iyo nabadgelyo